magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxaa maanta si rasmi ah looga daafuray qorshe magaaleedka amaba Master Plan ay yeelan doonto magaalada Borama waxaana daafurka qorshaha Master Plan magaalada Borama goobjoog ah wasiirada wasaaradaha howlaha guud maalgashiga maamulka gobolka degmada xildhibaano ka kala socday golaha wakiilada iyo deegaanka madax dhaqameed aqoonyahan haween iyo mudan kale ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay mudane Cabdilaahi Maxamed Jiide agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Soomaaliland wasaaraddu in muddo ah waxay soo waday qorsheeno kala duwan oo ah caasimadaha gobolada dalka runtii waa magaaladii shanaad ee laga sameeyay Master Plan maanta waxaanu ku sugannahay oo ah magaaladii shanaad magaalada Borama ama aan halkan ka cadeynayno in Master Plan-ka Borama ee musaaka furayna uu yahay mid international ah oo sida caalamku wax u qorsheeyo that's why waxaan u baahanahay runtii inaad nagu garab gashaan ninkii Master Plan-kaasi maro kii uu ku soo yar leexdo kii wax ka qoonsada wasaan idin sheegay waa kulli maslaxatin lahu mafsada inaad nagu garab gashaan qurxinta iyo qaabaynta magaalada Borama intaasi kadib waxaa hadalka u kala dambeeyay madax dhaqameed culimaawidiin aqoonyahan haween waxayna ay soo dhaweeyeen qorshaha Master Plan magaalada Borama Master Plan-ka maanta la daahfurayo inteenan muuqato u dan maaha kuwa dhalan doona ubaxa soo kacaya waa mustaqbalkii 20 sano kadib xitaa Borama barnaamijyo badan baa ka socday oo marka horeba aynu ku rabnay inay Borama qurux badan aynu helo haddii maanta dawladdu intay soo faragelisay ay tiri waxaan samaynaynaa Boramadii abwaanadu ka warhayay jaanis aynu helay maanta aynu xamilno marka talaabo la qaadayana kulay axad way badan tahay marka aynu adkaysanno cidii ay ku soo hagaagtaa bisig ha qabsato magaaladani meel qurux badan bay ku taal waa magaalo yar fool xumaatay naga yar fool xumaatay dhinacyo laakiin meel qurux badan bay ku taalaay inta yaran toosino marka waxaan la qabaa dhammaan dadkii iga horeeyay waxaan soo dhaweynayaa barnaamijka Master Plan-ka ah ee quruxda badan leh ee wasaaradda howlaha guud ee guryeynta Soomaaliland ay wado sharcigu wuxuu qabtaa qofka qaldan in badan badanta guud ka hor imanaysa oo bari oranaysa reehbal sheegi doona waxa weeye danta guud reehbal ma taqaano haday masaajid ku dhacdo hal la dumiyo haday xaafad ku dhacdo hal la dumiyo Master Plan-ka waxaan u malaynayaa inuu yahay wixii fududeynayay isku socodka guryaha qiimahooda soo saarayay wadooyinka la maraya lahaa waan anaguna dalay baan u badanaa qolayda reer Borama kuwa guryaha uu ka maro in la jicsimaan ka codsanayna maanta mashruucaasi waan soo dhaweynaynaa wax kale oo inoo yaala ma jirto waxa weeye waxay noo yaaluun inaynu garab galno inaan la shaqayno inay iyaguna shaqada sida aad u soo gunaanadeen u soo galbiseen inaad u gudataan baan idiga doonaynaa maayirka magaalada Borama mudane Maxamed Axmed Warsame iyo gudoomiyaha gobolka Awdal mudane Maxamed Axmed Caalim Timbaro oo goobta ka hadlay ayaa yidhi u joognay xafladii daahfurka qorshe magaaleedka magaalada Borama kaasi oo soo socday muddadii 2 bilood ee ugu dambeeyay waxaynu soo gudubnay strategic phase oo la qorsheeyay Borama nooca ay ka doonto wadooyinka yeelan doonto iyo meel walba waxa laga dhigi doono imika waxaynu joognaa xafladii daahfurka oo waxa bari toola bilaabmi doona phase-kii ugu dambeeyay oo implementation phase-kii oo ah sidii loo fulin lahaa qorshe magaaleedkii kaasi oo inoo sahlaya horumarka aynu hiigsanayna inay Borama gaadho maanta reer Boramo ilaahay wuxuu nala soo doontay wanaag wasiir dawlad baatiine haddaanu diidno maanta fadhiga la nagu qaadsiya anigu intaasaan oranay kulley waxa weeyaa waa daafur waxa weeyaa waxa la daafurayaana waa qorshihii magaalada Borama kulley qorshahaasina wuxuu dab yahay waxa weeyaa waa ummadda degan magaalada Borama dab yahay
marka aad iyo aad baan wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha Somaliland iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Somaliland mudane Cabdilaahi Abubakar Cismaan oo ugu dambeyn madasha horta waxaan u joognaa waxa weeye waa qorshe magaaleedkii magaalada Boorama qorshe magaaleedka magaalada Boorama wuxuu ka turjumayaa xaaladda imika joogta iyo magaaladu sida imika ay tahay kama jawaabayo wuxuu ka jawaabayaa mustaqbalka soo socda 20 sano 30 sano kadib magaaladu soo ekaanaysaa jidad nuucee leekaanaya heelanaysaa dad intee leeg baa joogayo ku noolaanaya gaadiid intee leeg baa maraya marka wasaaradda howlaha guud waxaan ku amaanaynaa inay magaalada odorostay 30 sano iyo 20 sano kadib sida ay noqon doonto sideedaba marka laga hadlayo qorshe magaalo waxa weeye waa qorshe fog qorshe long term oo document maaha hadal maaha waa document kaasoo kale aan jecelahay inaan la wadaagi doono dhammaan hay'adaha khusayso inagoo ka fikirayna kororka iyo horumarka magaaladan aynu markaa u sameynayno qorshaha marka koowaad waa isticmaalka dhulka ayaa la qorsheynayaa dhulka deegaan noqonaya dhulkaan deegaan noqonaynin dhulka noqonaya industrial zone marka insha Allah horta number 1 waxaynu qorsheynaynaa waa dhulka waxa kale la qorsheynayaa bulshada lafteeda waxaan runtii rajaynayaa master plan kuna inuu noqon doono milestone labaad ama horumar labaad oo gobolkan iyo degmadan ay yeelato oo ilaahay ugu sameeyaan wax ka qabto marka waxaynu qorsheynaynaa ma aha magaaladan inaynu imika cagaf dhex gelinayno waxaynu qorsheynaynaa waa magaalada cusub oo insha Allah degmadan Borama yeelan doonto soo kale waxaan imika halkan doonaynaa kaga dhawaaqo laga bilaabo Britole bishiinadii iyo cagafyadii iyo qalabka way bilaamayaan la soo dhaweeyo Cabdirasaaq Umar Macadowliyo telefishinka CBA